والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زغ البصر وما طغى لقد رئي من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق
الحق شيئا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله تعالى ما أنت وحين كهد لدونا أفر فايدو ولغه لو قرآنك دغيسيسا waxa laga helaa faa'iidooyin aad u fara badan oo aan la soo koobi karin, laakiin waxaynu ka soo qaadan doonaa afar faa'iido oo waaweyn oo aad ka helayso quraanka dhageysigiisa. afarta faa'iido inta aynaan bilaaban waxaynu soo yara qaadan doonaa qiso ka hadlaysa saxaabi ku islaamay quraanka dhageysigiisa. sidaynu wada ogsoonahay saxaabo aad u fara badan iyo ummad aad u fara badan ayaa islaamnimada waxay ku soo galeen quraanka oo ay maqleen oo ay dhageysteen. haddaba qisada aynu soo qaadanaynaa waa saxaabiga la yiraahdo Tufayl ibn Amir ad-Dawsi oo oday u ahaa reer Daws. waxa uu yimid Maka oo uu ka socdo dagaal u dhaxeeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo odayaashii Quraysheed. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka ugu yeerayaa diinta islaamka, iyaguna waxay ka hortaagan yihiin diinta islaamka. Tufayl markii uu soo galay magaaladii Maka ayaa odayaashii Quraysheed waxay u soo dhaweeyeen si aad u wanaagsan. waxay dejiyeen meel la dejiyo meeshii ugu wanaagsanayd, kadibna waxay uga warameen rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waxay yiraahdeen waxaa naga soo baxay ninkaasi waxa uu sheegtay nebinimo, hadalkiisu waa sida sixirka oo kale, waxa uu kala kaxaynayaa inan iyo aabihii, waxa uu kala fogeynayaa labadii nin ee walaalaha, waxaanu kala kaxaynayaa nin iyo xaaskiisii. Tufayl ibn Amir ad-Dawsi wuxuu yidhi kamay suulin inay igu cabsi geliyaan ilaa aan go'aansaday inaanan la kulmin oo aanan dhageysan wuxuu leeyahay. waxaan u soo kacay Kacbadii si aan ugu dawaafo oo asnaamtii yaalay aan uga barakaysto. markii uu soo galay Kacbadii ayaa wuxuu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo taagan oo tukanaya. wuxuu ku cibaadaysanayaa cibaado aan cibaadadoodii ahayn. kadibna salaadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa qalbigiisa aad u soo jiidatay oo qalbigiisa gilgishay. waxa uu dhagaha gashtay suuf si aanu rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa u maqlin. waxa uu arkay isagoo ku sii siqaya oo ku dhowaanaya xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoon u diyaarsanayn. kadib waxaa ku soo duulay qur'aankii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhrinayay ayaa dhagihiisa ku soo duulay. naftiisa ayuu la hadlay, waxaanu yidhi Tufayl waxaa tahay nin gabayaaya, nin waxaa tahay kala garanaya waxa xun iyo waxa wanaagsan, bal haddii aad dhagaysato wixiisu haddii ay xun yihiinna aad ka tagto, haddii ay wanaagsan yihiinna aad raacdo. rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii dhammaystay ayuu u kacay dhinaca iyo gurigiisa. wuu ka daba tegay ilaa uu ka daba galay gurigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waxaanu uga waramay Qurayshi sidii ay uga digtay inuu u dhageysto iyo arrinkii ay ku yiraahdeen. waxaana uu ku yidhi arrinkaagan bal ii soo bandhig aan dhageyste. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku akhriyay suurat al-Ikhlaas. hadalkii ayaa taabtay qalbigiisa, halkaasi ayaanu ku islaamay oo uu shahaadada ku qiray, islaamnimadiina uu ku qaatay. quraanka dhageysigiisu waxa uu leeyahay faa'iidooyin aad u fara badan oo aan la soo koobi karin. waxaynu ka soo qaadan doonaa afar ka mid ah faa'iidooyinkaasi. quraanku dhageysigiisa waxa lagu helaa naxariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala. إلهنا سبحانه وتعالى وحو قرآن كيسا كيدي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مركا قرآن كلا آخرين
dhagaysta oo aamusa si la idinku naxariista baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. marka haddii labada qodob laga helo oo aad aamusto qalbigaagana soo xaadiriso aad dhagaysato, ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa ayaa kugu soo degaysa. qur-aanka dhagaysigiisa waxaa laga helaa hanuun iyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo hadeeyo. imisa ayaa dunuub ku jiray, imisa gaalo ahaa, qur-aanka markii ay maqleen ilaahay subxaanahu oo ay dhagaysteen, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jidka toosan uu ku hanuuniyey. insiga iyo jinkuba qur-aanka haddii ay dhagaystaan wuxuu u noqonayaa hanuun. rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaan la soo saarin ka hor, jinku waxa uu fadhiisan jiray samada meel ka mid ah ama u dhow ayuu fadhiisan jiray. halkaasi waxa uu ka dhagaysan jiray awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu malaa'igta siiyo ayuu soo dhagaysan jiray. markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay soo diray ayaa laga xidhay. markay fadhiistaan meeshii ay fadhiisan jireenna waxaa lagu soo gani jiray oo lagu soo tuuri jiray dhagaxaan naar ka samaysan. kadibna waxay yidhaahdeen adduunyadii waxaa ku soo biiray arrin baa ku soo biiray. way iskala qaybiyeen, adduunkii oo dhan ayay isku qaybiyeen si ay u ogaadaan bal arrinkaasi soo kordhay. iyagoo baadigoobkii ku jira ayaa koox jinka ka mid ah ayaa waxay maqleen rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga oo saxaabada tujinaya salaad subax meel u dhaxaysa maka iyo taa'if, oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaad subax ku tukanaya ayay u yimaadeen oo ay dhagaysteen. kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u waxyooday oo uga warramay kooxdaasi qur-aanka dhagaysatay ee ilaahay rumaysay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu inaa samicnaa qur'aanan cajaba yahdii ila arushdi faaamanaa bih walan nushrika birabbina axada. nebi maxamedow waxaad tidhaahdaa waxaa la ii soo waxyooday in ay dhagaysteen koox ka mid ah jinku qur'aanka ay dhagaysteen oo ay yidhaahdeen waxaanu maqalnay qur'aan cajiib badan. dadka yahdii ila rushdi waxa uu ku hanuuninayaa jidka toosan iyo wanaagga. fa aamanaa bihi annaguna waanu rumaynay walan nushrika birabbina axada, rabbigayana cibaadadiisa cid kale la wadaajin mayno. ilaa aakhiri alaayaati ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay. markaasi kooxda jinka ah ee baadigoobka ahayd ee waxaan dunida ku soo biiray doonaya inay dhagaystaan qur'aankii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhrinayay ayay dhagaysteen. waxaana la sheegaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu akhrinayay suuratu alaclaa iqra bismi rabbika aladii khalaq ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhrinayay. qur'aankaasi ay dhagaysteen ayay ku hanuuneen, ilaahayna subxaanahu wa tacaala ay rumeeyeen. qur'aanka dhagaysigiisu waa cibaado. qofka qur'aanka dhagaysanayaana intaa uu dhagaysanayo waxa uu ku jiraa cibaado. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu u qorayaa halkii xarafa xasano, xasanadaasina waxaa loo labanlaabayaa 10 jeer. mar la weydiiyey sheekh ibnulbaas raxmatullaahi calayhi qofka qur'aanka ka dhagaysanaya cajalad ama moobil ka dhagaysanaya ajarkii ma helayaa? waxa uu yidhi haa, waana isku mid qofka dhagaysanaya iyo qaariga qur'aanka akhrinaya. halkii xasano wuxuu helayaa xasanuu helayaa, halkii xasanana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u labanlaabayaa 10 jeer. dhammaan walaalahayga muslimiinta ahna waxaan kula dardaarmayaa in ay qur'aanka dhagaysigiisa ku dadaalaan oo ay dhagaystaan. qur'aanka dhagaysigiisa qalbiga ayaa ku qoya oo ku khushuuca. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa cabdullaahi bnu mascuud ayaa wuxuu ku yidhi iqra' calaya alqur'aana, qur'aanka igu akhri. cabdullaahi bnu mascuud baa wuxuu ku yidhi rasuulkii ilaahayow ma waxaan kugu akhriyo adigoo qur'aankuba uu kugu soo degay? markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi igu akhri
waxaan jecelahay inaan ka maqlo cid aan aniga ahayne kadibna waxaan ku akhriyay buu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud suurata annisaa ilaa aan ka soo gaadhay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi halkaasi ku jooji kadibna rasuulka ayaan daymooday waxaanan arkay labadiisa indhood oo ilmaynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal qur'aanka dhegaysigiisu faa'iidooyin fara badan oo aynaan soo koobi karayn ayuu leeyahay waana hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala cabdullaahi ibnu mascuud baa wuxuu yidhi haddii aad maqasho yaa ayuha aladiina aamanuu haddii aad maqasho dhegtaada soo taag oo si fiican u dhegayso ama khayr ayaa lagu farayaa ama shar iyo wax xun ayaa laga reebayaa marka insha allahu tacaala qur'aanka aynu dhegaysanno wakhtiyo fara badan ayaynu haysanaa waxaa laga yaabaa waxyaabo aan aakhiriya adduunba faa'iido inoo lahayn inuu wakhtigaasi inaga lumo laakiin haddii aad qur'aanka daarato moobilkaaga aad ku qorto sheekha aad codkiisa jeceshahay ee codka wanaagsan leh aad ku qorto kadibna aad dhegaysato oo aad qur'aanka ilaahay dhuuxdo naxariista ilaahay iyo cabsidiisa iyo khayr fara badan ayaad helaysaa aynu insha allahu tacaala qur'aanka dhegaysanno oo aynu ku dadaalno dhegaysigiisa barashadiisa iyo weliba akhrintiisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh